madaxweynaha hadda jooga Puntland kuma guuleysan hal meel oo shaqo abuur dhalinyarada waa inuu sameeyo bal iska wadaataad badalkeeda wuxuu ku guuleystay in 20 milyan oo Puntland laga qaado in xamar lagu soo kharash gareeyay musuqa qaybka in wasiir la keeno heerkiisa wasaaradda u soo xaqliyo de marka hore ceeb ma baaha in lagu keeno laakiin wasiirka ceeb marka hore qabiil ku yimaada Rahmaan Rahiim magacay waa Isxaaq Cabdisalaam Khalid wa salaam ya Isxaaq Cabdisalaam Khalid والسلام يا دمان أنت مدرسة كوشوغان سلوك لنا وأمهات علمي بعد ورباهنتا وبرامج سواق مقابسي وأنا حقيقة جدا شقة ورباهنتا بلارنا هي سواق أمهات علمي أنت كذب وحرب على وير وكومنتينا قالوا موضوع ماشي على ووح أو بدن ما أنت السويديني صوماليا نباتة أو بدن هذا كذا وتهريبك رنتي وحنو مليني الدولة waxaan islahaa ragii joogay xarumaha dawladda ee ku shaqeynayay ee dawladda difaacay baa jooga meesha waxaan nacawayna iyaga oogada kaga dhacna wixii aan qabnay oo afkaara marka waa u mahadsan yihiin cidda matalaysa laakiin waxaan rabnaa si xaqqa oo jidda looga hadlo waxa jira nin dhalinyaro ah oo hadda dawladda u shaqeeya oo dawladda matalaya haddii uu ku helay fursadda qof meesha u jooga isaga waxa jira kumanaan wax soo bartay oo banaanka jooga marka waxa in xaqada laga sheego ninba hadaaya xusay magaciisa iga hoos baxsan dhibaatada tahriibka waxyaalaha kalifaya rabaa inaan markii u galo oo dawladdu gacan ku leedahay runtii waxa uu weynaa maanta ka jira tahriibka dhalinyarada ku sababaya waa waxbarashada oo runtii aan u manage garaysanayn baahida suuqa ku salaysan markuu hadhow ardaygu ka soo dhaxbaxo goobta waxbarashada 12 sano balaas 4 ama 5 sano hadda dawladdu ay ka dhigtay jaamacadda dhibaatada weyn oo ka jira waxa weeye ardaygaas 16 sano markuu waxbarasho soo dhameeyo hadhow kadib wax maslaxa oo xaqqa oo ka jira oo la kulmaya ma jiro hadda waxa fiirinay dhalinyarada jaamacadaha ka socota hadda qayb kamid wax weydiiyay hal xirfado jaamacadda lagu barto ma jiro jaamacadaha Garowe baa hadda joognaa meediyaha hal jaamacad oo bixisa ma jiro barnaamijka media skills kale haba sheegin iskoolkana waaba taqaanaa 7 maado oo 8 maado markii ardayga lagu soo garaaco boo hadhowto wuxuu la kulmaa markuu 12 tago fasalka centraliska taxan galayo meesha ugu adag inuu 12 galaas taxan laga soo qaado marka wasaaradda waxbarashada la rabay in cid ka matalaysa ay joogto oo waxaas dooda ay taabanayso iyadu oo xaqqa oo ka maqan meesha waxa kale oo rabaa in la hadlo bahda skillska oo runtii Puntland gaabis badan baa hadda ka jira hadda Garowe waxaan maleynayaa hal macad baa bixin jiray isagana reer Garowe oo dhan ma qaado dib u habeen buu u baahan yahay si yubisu hadii ahaan la xirfadaha biyo gelinta iyo korontada khayr Allah si shirkadda Noxon baa mar dhaweeto waxay abuurtay fursad weyn oo u mahad celinaya sidoo kale shaqaalaha dhibaato weyn baa ka jira hadii laga shaqeeyo xirfadda biyo gelinta hadii laga shaqeeyo xirfadda korontada hadii laga shaqeeyo xirfadda masaxaadda taliyaha waa u qaadanaya amarkiisa hadii laga shaqeeyo midda weeldaqida hadii laga shaqeeyo midda waardiyaha ma jiro xeerka kala xadeynta shaqaalaha iyo loo shaqeeya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha laga rabaa qof maanta dhan taagan fursadda uu ku shaqeynayo long term ka uu shaqeynayo iyo waxa uu ku shaqeynayso in la isla keen waxa la yaab $140 ama $150 ama $200 inuu qofku nolosha maalintii oo dhan uu la halgabo laakiin xaqiiqada markii hadhow la tago waa naqaana Garowe nolosha taala $200 inay qof waxba ka tari karo waa ogna ama Puntland mid ka jira waxa rabaa inaan u gudbo iyana dhaqaale xumada wadanka ka jira oo runtii meeshii ugu dambeysay ah siyaasiyiinta oo hadar la xusay oo aan doorkaas u diyaarsanayn madaxweynaha hadda jooga Puntland kuma guuleysan hal meel oo shaqo abuur dhalinyarada waa inuu sameeyo bal iska wadaataad badalkeeda wuxuu ku guuleystay in 20 milyan oo Puntland laga qaado in xamar lagu soo kharash gareeyay marka waxa qajida hadaa waxaas iyo waxa la midka laga hadlina ee runtii xaqada afka laabanayna waxaan rabaa in hadda xuso iyana musuqmaasuq baahsan baa jira oo dawladda waa waxba laga xalin oo waxba laga taaban hadii aan isaga la xalin dhalinyaradu shaqo helimayso waxa musuqa qayb ka ah in wasiir la keeno reerkiisa wasaaradda u soo xaqliyo de marka hore ceeb ma baaha in lagu keeno laakiin wasiirka ceeb marka hore qabiil ku yimaada hadhow marka waxa yaraanaysa eedii ahayd inuu qabiilkiisa keeno hadda waad arkaysaa Soomaaliya waxa soo badanaya in siyaasiyiintu la soo banbaxaan in shaqaalaha xafiiska
ay wasaaradda ama meesha ay joogaan qabiilkooda ka soo dhigaanin waa arkaysan hadda wasiiro ka mid dawladda ku dhawaaqay federaalka ganacsatada oo doorkooda lumisay runtii garow aan joognaa xaqiiqada ugu weyn ee ganacsatada waxa weeye maalin walba hotel cusub baa garow laga dhisaa haddii fursad abuur dhalinyarada looga samayn lahaa ganacsiyada noocaas oo kale oo runtii xoolihii bulshada ay ka tabcadeen waxa la yiraahdaa ganacsaduhu wuxuu baraaraa xilliga bulshadu ay baahida qabto haddii bulshada loo samayn lahaa wax muhiim u ah isbedel baa dhalan lahaa hadda garow waxa laga yaabaa mashaariicdii ugu dambeysay inay ahayd 3 hotel oo waaweyn lagu kala faanayo ganacsiyada kala faanaysa waxa la yaabaa ganacsadaha inuu dhiso meherad aad u qurux badan oo ninka xilka hayo wasiirka ah wax jeebkiisa ku jira oo kala soo baxo ama shaax kaga cabo ama kafe kaga cabo inuu inta ka fikirka ganacsadaha uu ku soo koobnaado waa dhacda runtii tahriibku waa dhibaato weyn kuma dhiirigelinayo dhalinyarada waxa loo tahriibayo iyo waxa loo socdo mid walba waa khasaaro hadii qof dhalinyaro oo aaminsan yahay waxa loo tahriibaya faa'iido leh waa dhalinyaro maangaabo waxaan xaqqa oo jida bulshadu meesha hadda u socoto wacyi bulshada baa aad u hooseeyo isagana taliyuhu hadeerde wax laga qaban karaa ma jiro nin dhalinyaro oo guriga hooyadiisa ka soo kacay oo shaati iyo surwaal qurux badan qaba oo tay u xiran yahay oo aeroboortka garow ka duulay oo jeebka lacagta ku wata hadda wax hadda laga qaban karaa ma jiro waagi hore baashu inta waa ka duwan dhibaato kale loo mari jiray marka booliiska hadda laguma dhaliili karo hadda waxa jira laakiin waxa la rabaa in la xalliyaa dhalinyarada in la dhisaa manhaj ahaan waxbarasho ahaan dhaqaale ahaan siyaasiga laga dhisaa oo ganacsatada laga dhisaa oo doorka siyaasiga la dhisaa baa ka muhiimsan in caawadan hadal isugu sheekayno marka ha loo noqdo xukuumadda hadda jida ina fariinteeda gaarsiisana waa jeclaan lahayn hadii cid matalaysana waa jeclaan in xafiisyadooda kula noqoto wasiiradana waxaan ka codsanaynaa hadda jooga ama madaxweynaha hadda jooga ina aragti cad la yimaadaan hadda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha cid baa ka joogta bal hadii la tusi karo xeerka shaqaalaha iyo waa codsan lahayn iyaga yugooda bal dhibaatadaas yugooda waa taagan tahay waana maasantiin salaam